بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاوي ميشان مصر واي حي التاسع وحوين واي صعدا لو جرا سرتاس horteena ahna waxa way kaniisada ugu weyn xaafadan. Marka waxaan rabaa inaan idin sheego guud ahaan wadanka Masar 10kii qofba hal iyo bar waa gaalo, sidaas ha loola socdo. Marka ha isdhihin inta la kulantid 8 iyo bar qofood inta kalena muslimiin waay, saas ha loola socdo. laakiin qof walba waa tacaamulkiisa sida loola tacaamulo, laakiin iska ilaaliya. oo taas waxa waaye waxaan rabo inaan idin sheego. inta ka bacdi waxaan rabaa in aan idin la wadaago sharciga wadankan lagu soo degi karo. waxa waaye wadankan su'aalaha la isoo weydiiyo waxa ugu badan sharci oo ma aragtay sidee ku soo degi karnaa meeshan. sida ay Soomaalida sameeyaan badanaa waxa waaye marka ugu horeyso waxay ku soo galaan visa turista oo ma aragtay $200 la bixinayo. marka intaas sameeyaan ka bacdi waxa dhacayso Allahul musta'aan waxay xaq u leeyihiin inay joogaan meeshan hal bil iyo xoogaa 40 cisho kale. 40 cisho ka bacdi waxa way fiisada waa ka dhacaysaa, waxayna noqonayaan dad sharci darro wadanka ku jooga. marka sidee ku joogi karaa? waxaa la sameeyaa dhowr qodob. qodobka koowaad aad ku deganaani kartid waxa waaye inaad arday tahay. haddaa arday tahay waxaad xaq u leedahay fiisa ardaynimo inaad hesho, ama ilmahaada hadday wax dhiganayaan caruurtaada inaad ku qaadatid waxbarashadooda. hadday taasi jirin waxaad xaq u leedahay in aad hesho ganacsi, oo haddaa meherad ka furatid meeshan meheradaas waxaa ku qaadani kartaa maxaa la dhahay sharci oo fiisa deganaansho ah. haddii intaas aadan ku jirin haddaa guri iibsatid oo gurigaada maxaa la dhahay super loogo saafi ahoo leeyahay waxa waa iyadana waxaad ku qaadani kartaa wadankan deganaansho. midda kale oo wadankan lagu deganaani karo waxa waaye Allahul musta'aan in aad family member oo Egyptian aad ma aragtay xiriir la leedahay oo isguursataan. markaasaytana waxaad xaq u leedahay in aad ma aragtay meeshan deganaansho aad ku heshid, oo maadaama family memberka meesha kuu joogo uu yahay masaari, sidaasaytana adiga fiisa lagugu dalbo oo aad ku heshid. qodobka ugu dambeeyo oo ma aragtay meeshan lagu deganaani karo waxa waaye oo Soomaalida Soomaaliya ka imaatay badanaa ku deganaadaan waxa waaye in ay dalbadaan qaxooti. oo ma aragtay hadday qaxooti dalbadaan markaas Allahul musta'aan waxa waaye waxay xaq u leeyihiin magangeliya doon inay ahaadaan. marka aniga yaa la isoo weydiinin magangelyada sida lagu helaa, taas aniga experience uma lihi, aqoonteedana ma haye. laakiin dad oo ma aragtay dhinaca UNHCR-ka aqoon u lahaa jiro, dadkaas aad la xiriiri kartaan. aniga taasi aqoon uma lihi, laakiin sharciyada kale oo caadiga ah waxa waaye sharciyo oo ma aragtay maxaa la dhahay aan aqoon u leeyahay. laakiin dhinaca qaxootinimada taas aniga experience uma lihi. marka saasaan ula wadaagayaa mujtamaceena Soomaaliyeed wadankan sida lagu deganaani karo. kaniisada ugu weyneedna waa tan maanta oo crosskii saaran yahay. marka ha isdhihinan wadankan waa wada muslim. waxa waaye 10kii qofba hal iyo bar waxa waaye gaalo. oo ma aragtay marka masaarida la sheekaystayna waxay ugu dhaheen gaaladii 2 shay yaa la siiyay dhaheen. oday oo masaariyaan la sheekaystay wuxuu dhahay 2 shay yaa la siiyay, qurux iyo lacag. walow ani intaasba aan arkin. marka waa kaas. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.